السلام عليكم كسر هذا برنامج كنا قصة كون ونكب لعب دونا قصة ليونيل ميسي مركان كان معنا دين توهستو يعيد يهي on eegno qisada dadaalkiisa macna wanaagsanayno sameyn karta Messi wuxuu ahaa shaqaale iska fudud hooyadiina waxay ahayd shaqaale dhulka masaxda iskuul ku yaala dalka Argentina kooxdan sano markuu jiray Messi culays xaafada soo food saaray oo Messi waxa ku dhacay cudur hormoniskiisa oo koriinka u diiday macnaha Messi ma kori doono jirkiisuna intaas uu la kaan doono waligiis xanuunka Messi helay waxaanu la daweyn karo laakiin bishii $900 $900 noon fahmi karna culayska ku hayso aaba shaqaale iska fudud iyo hooyo dhulka masaxda Messi hooyadii waxay bilowday in shaqo labaad raadiso si wiilkeeda uga bixiso lacagtan una daweyso wiilkiisa oo xanuunka haya haddana saasay tahay xirfadiisa ku badeed aad buu sareysay sababtoo ah Ilaahay waa caadil haddii wax ka qaado wax kale ayuu ku siinaya waxaanu Ilaahay dhahay وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها هذه كلها فيرين وحو إلهي كاقادة فير سوكا نمعوين كان إلهي فربضن إلهي نكو بقناستي ميسي إسوغو أغنانو كورينين حنون كان نهايو حدنا هدف كيسي كمني يتجوي أو ترينين والبا كوح دي سولة ده وتشوي تري ونتغي تري فهم كيسو نصو كلا ويكو قرب تاقناين أو كمير ريبين إنكستي أغاينانو فايدة والله إنكو بدين وقفان شركيسو كورينين لكن هادنا ساسيتي ويكو قرب تاقناين ووفس حجرين إنو سوع يارا مر والبا كو بدا Messi daba uu ka soo baxay isagoo wixii qof binaadam looga baahnaa inuu hadafkiisa gaaro ee ahayd joogteen iskamana jiifsan oo nolosha kama quusan gacmahan isma saaranin ee uu wada hadafkiisii saaxiibadiisa kubadda training-ka uu la sameyn jiray xataa way ku qosqosli jireen waxaanan koreynin maalmaha kamid ah ayaa garoonka Messi ku ciyaaray waxa ay mid nin kooxda Barcelona ka socda oo raadinaya dhaliil soo koraysa si uu qaato mustaqbalkana waafaqan kadib Messi ayuu arkay iyo xirfadiisan aad ka sareysa markaas uu weydiiyay dadkii meesha ka dhawaa waxa loo sheegay Messi inaanu manfac u lahayn isaga iyo kooxdu rabeen uu ka haysto sababtoo ah ninkan cudur wuxuu qabo hormoniskiisa ku dhacay oo ma kori doono ninkii Barca ka socday laakiin markuu baadhay xanuunkan Messi la tabaalaysan wuxuu ogaaday in bishii $900 lagu la tacaali karo xanuunka Messi oo lagu daweyn karo markaas uu tagay ninkii xaafada familka Lionel Messi uu sheegay inuu rabo inuu Messi ka haysto una ka haysto dhankaas Barcelona Spain وحقاس ku daweeyo laakiin hadii uu Messi caafimaado inuu muddo 10 sano Barcelona u ciyaari doono heshiisaas oo xaafadooda ka saxaxdo xaqaas ayaan ahayd bilowgii Messi maanta naqaan oo dhigi karno hadafkiisii ku badeed uu gaaray ka waran Messi markuu ogaado xanuunkan uu qabo haduu iska farsan la iska saxan ku badina barta ka gaari la dabcan maanta meelan daawaneen magacaasi caanimadiisaasna ma sameeyeen inakuna dabcan wax Messi la dhaho meelan maqalneen قصة ليونيل ميسي waxaynu aragnaa farqiga u dhaxeeyo qofka iska jiifa ee kasuulka iyo qofka hadafkiisa eriyanaya xaaladda doontaba ha noqotay muuqaalkeena qisa kooban intaas aynu ugu yahay fadlan haduu ku cajabay subscribe saar lana si wadaaga asxaabtaada share wassalaamu calaykum